السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي وأنا كل راجني بدان كل مقنين وإلهي مهدي هدي أنا سكسور لابني إذن كون نبضة يعني كون نبضة وإلهي مهدي أصحابي marka ugu horeysa inta aan barnaamijkii u gudgelin hal codsi ayaan wataa hadaad ku cusub tahay halkan channelkan dad ku cusub tahay subscribe like share waa xagaaga haddii aad hore noola joogtana welcome maanta Soomaaliyay maanta waxaan rabaa barnaamij leeyahay iga dabagee inaan idinka dabageeyaan rabaa maanta oo kulley in badan oo maxay ahayd dad Soomaaliyeed ay ka soo hadleen bal anigana ra'yiga aan qabo ayaan rabaa inaan maanta ka jeediyo أصحابي سيد أدوكتين بريها وحاب براه بلشيد قبصدي قبل ولاasheen arooskeedii hodan online baa ma aragtay dad badan oo ku dhagan dad badan oo kala laada maxay u dhacday maxay ka dhacday bal fikirkaygaan rabaa inaan maanta ka jeediyo aniguna arrintaas baan rabaa maanta inaan bal wixii anigana igu aadan oo fikirkayga inaan ka dhibto baan jeclahay bal idinkuna sida aad u aragtaan ila soo wadaaga kolley aniga waxaan qabaa ka caasha ahaan شخصي لبا شخصي أو استعلاتي إن ما أركتي سدا ساس لوج سيفقانين إنك هدو ناقلي هاي هدو أصلا لهين هدو ناقبو هدو ناقصوتي لين كاس دو قصو كعياري بنقبا كل يعني شخصي أهان ابن ما أهان إن لو جورسن ناقبا because أدوه ما أحد قصبن قف كان قف أنت قريك وقبت تروريا كودا جورسو هرت مجرتو مرك Soomaali iska daaya maxay ahayd ficilka iyo hadallada aan loo fiirsan qof walaalkiina aad ku xaganaysaan aad ku aragtay leedin nibay dhacday nibay dishay nibay ka tadray waa hadalladaas yani waan ka aamus waayay runtii anaan jeclayn inaan dadka afaarooda galo balse haddana waxa damiirka ayaa wuxuu siin waayay inaan arrintan anoo maxay ahayd ma aragtay fikirkayga waxaan is iri bal ka aamusine bal ka hadal waxa aad ka qabtid baan is iri sidaas daraaddeed maanta meesha aan soo fadhiistay anigu kulley shaqsi ahaan arrin gabadhaas ceeba ma ay samaynin waxay samaysay arrin farxad leh wiil gabar waa is guursan jireen way guursatay waanu halbaneynayaa halkan waxaan leeyahay guurkaaga guur khayr qab Allah kaaga dhigo kolley aniga ka caasha ahaan anigu hambaliyaan u dirayaa halkan hambaliyaan ugu dirayaa balse idinku tartiib bal xoogaa isdejiyo oo bahasha hubka dhiga oo bal ka tartiibay gabadha dhaleecaynta iyo waxa ku wadaan bismillah maxaa dhacayna waryaanin hataa nin naag qaba la guursan maxaa loo baneeyay ininku afar naag guursado wataan la yaabanahay waay loo baneeyay diinteenu ma waxay sheegaysaa wax been ah ya ninka ragga afar naag guursado u banaan marka anagu yaan iska dhigin European iyo dad aanan shaqo ku lahayn yaan iska dhigin ninka ragga ah wuxuu guursan karaa wixii diintu u banaysay ha laga magaciisiyo gabadhaasna ha laga dego barnaamijkeega kulley aniga maanta intaasaan kaga harayaa asxaabay xasuusin waxaa inoo balan ah sheekooyinkeena iyo barnaamijyadeena kulley bal waxaan jeclahay inaan soo laba kacleeyo mar labaad inaad isoo dhaweysaan gacmo furan saa isoo dhaweyn jirteen aad mar labaad isoo dhaweysaan baa idinka rajaynayaa barnaamijyadeeni sheekooyinkeeni musalsaladeeni waxayna baan rabaa inaan dib ugu soo laabto haddii alla idmo bal isoo dhaweeya xoogaa family problem iyo waxbaa yara dib ii dhiga balse waxaan rabaa inaan mar labaad soo rogaal celiyo asxaabay isoo dhaweeya maanta barnaamijkan intaas ayaan kaga baxayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu